wiiga go-ay marka sorry aadaan uga xumay wiiga go-ay waxaa iga go-ay maxaan ku rahdaa internetka lugta gacanta igaga dhacday marka ciwaankayga hore hadda ciwaankan ma laha aan umalaynay laakiin ciwaankayga hore wuxuu ahaa farmaajo runtii wuu fashilmay yacni waxa weeyaan wuu fashilmay wuxuu ku fashilmay dhiibidii uu dhiibay haddii ay taasi xaqiiqa tahay 100% sida loo badinayo waa taasi way jirtaa sida la cadeeyay laakiin haddii uu dhiibay wuxuu galay qadaf siyaasadeed buu galay wuxuu galay khalad siyaasadeed oo weyn oo bilmatalan aan Soomaalida ka soo hadhayn weligeed aan ka soo hadhayn kow wuxuu geystay qadaf siyaasadeed oo isagoo Soomaali maartay magaca Soomaaliyeed inuu kor u qaadayo danaha Soomaaliyeed ilaalinaya xuquuqda Soomaalida ilaalinaya isagoo ku soo galay oo lagu doortay oo dadka u sheegay ayuu xuquuqdii dadkii ummadii Soomaaliyeed ku xadgudbay oo qaar Soomaali ah oo gacanta intuu ku qabtay oo waliba cadow u geeyay kow qadaf buu ku galay taas arinta iyada ah iyo qadaf ku galay isagoo ka hor yimid dastuurka ay maartay dawladda lagu doortay ay ka hor yimid iyadana qadaf kale ayuu ku galay marka iyada oo maxaan ku raahdaa waliba ay tahay ninkii madaxweynaha ay ugu horeeyay ee federaal isaga ka turjumaya ama ka turjumaya de ummadda Soomaaliyeed meel xarun oo ka turjumaya waxaa dhacday inuu haddana isagoo ka turjumaya ummadda Soomaaliyeed ninkii ugu horeeyay ee dhiiba xasan sheekh waxaan ku haysanay markuu jigjiga tagay jigjiga ka dhaanteeyay waxaan ku haysanay xasan sheekh in uu dhaanteeyay oo meesha ka dhaanteeyay laakiin ismaana lahayn xasan sheekh nin ka hooseeyo oo ka liita ayaa imaanaya marka hadda maanta waxaa cad in farmaajo runtii uu ka hoos maray ninkii xasan sheekh heerkii uu taagnaa waxaan oran karaa xasan sheekh waa hadda loo darsaday baan oran karaa laakiin marka hadda farmaajo la fiiriyo way sababtaa qadabka yacni khaladka siyaasadeed uu galay runtii yaa ah mid aad iyo aad u weyn mid aan laga soo kaban karin midda ugu daran waxa weeyaan kalsoonida ayaa luntay kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ee soo yabanaysay ee soo biqlaysay soo yacni mataqaana soo baxaysay ayaa baabaaday waxay taasi dhaxal siinaysaa hadda kadib in Soomaaliya aan la aamininba hadda siyaasi Soomaaliyeed lama aaminayo see lagu aaminaa siyaasi Soomaaliyeed yacni aaminkaas inuu lumana waxa keenay waxa weeyaan farmaajo ayaa keenay waayo farmaajo wuxuu hadda keenay ama uu hadda sameeyay in gurigiisa ama madaxtooyadiisa intii nin Cabdikariin laga gardaduubo la xiro in isaga loo dhibo sidii gabadh la galbinayo oo kale intii safaaradda Itoobiya ee ku taala xaruntooda la geeyo la garbaxiro in halka diyaarad laga saaro Itoobiya loo diro runtii wax hadda arintaas sameeyay ma jiro xasan sheekh waxaan kula yaabanay yacni waxa weyn jigjigu uu dhaanteeyay kaliya laakiin madax ma dhiibin aroontinka inuu dhiibi lahaa sidoo yeeli lahaa aanu ma garanayo يعني waxa weeyaan muddadii uu xasan sheekh madaxda ka xamarna iyo Cabdikariin xamar lahayd Cabdikariin xamar buu ku noolaa muddada iyada marka hadda waxa weeyaan hadal badan meesha uma soo gelin laakiin saddex qodob baa u banaan farmaajo yaan u maleynaya inuu u banaan inuu mid sameeyo saddexda qodob haddii aanu sameynin farmaajo horta kalsoonidii wuu lumiyay oo yacni kalsooni Soomaaliyeed oo dambe u hadhay isaga ma jiro laakiin saddex qodob waxa weeyaan haddii inuu mid sameeyo weeyaan kow farmaajo waa inuu iscasilo oo ayrintu soo istaagay iscasilo ilaa waan isku fashilmay madaxtinimada Soomaaliya waan ku fashilmay maaragtay qowlkii aan anigu ummadda Soomaaliyeed u sheegay wixii aan ku campaign gareynayay dadka u sheegayay aan hadafay waan lumiyay arrintaas waan lumiyay maadaama aan arrintaa lumiyay oo ku guul dareysay waan iscasilo inuu iscasilo taa kale uu ku badbaadi karaa kama soo harayso kale taariikhdan haddii uu taa sameyn waayo waxa u haboon oo u banaan in uu isaga iyo ra'iisul wasaarihiisuba ay ummadda la hadlaan oo intay soo taagaan yiraahdaan khalad baan galay annaga ninka dhiibnay Cabdikariin annaga Itoobiya u dhiibnay iyagoo oo sheegaya sababta ay u dhiibeen oo u gacan galiyeen iyo waxa ku kalifay iyagoo sheegaya dadkana cafis weydiisaan qofkii marka cafiya isaga jirtaa marka qofka dadka qaarna way cafiya dadka qaarna ma cafiyaan laakiin qofkii cafiya isaga jirtaa marka waa arinta saddexaad arinta labaad weeyaan arinta saddexaad waxa weeyaan diyaaradii lagaga qaaday Cabdikariin magaalada Xamar ee uu kaga qaaday ee uu u gardoodubay gumaysiga oo u dhiibay gacantiisa ugu dhiibay in diyaaradii lagu soo celiyo Cabdikariin taasina waxaan u maleynayaa waa mid ugu sahlan uu sameyn karo waayo markaan u fiirsado يعني dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa weeyaan meel dhow ka fikiraan yacni inay dantooda ku gaaraan bay had iyo koor meesha ay joogaan iyo had iyo koor ku tala galaan inaan is casileen waan ogahay way u fiicnaan lahayd inuu is casilo
laakiin inaanu iscasilayn waan ogahay laakiin waxa u fudud kaliya in cabdikariin diyaaradii lagu qaaday in lagu soo celiyo Ethiopia danaba iyaga xukunta Ethiopia hadda maxaan ku rahdaa xamar iyada xukunta anigu sida aan hadda u arka iyada Ethiopia xukunta waxaan u haysanay nin maxaan ku rahdaa nidaamka Ethiopia iyo faragelinteeda iyo wixeeda madax banaan baan u haysanay waxaan u haysanay nin maxaan ku rahdaa qadiyad fog leh nin waxaan u haysanay aragti dheer leh yaani ra'iisul wasaaraha isagoo waan u haysanay labadaba waan u haysanay laakiin hadda waxaa timid in muwaadin Soomaaliyeed intay xidhaan oo Soomaaliya inay cadow u gacan galiyaan cadow ay og yihiin waliba inuu dilayo ay u gacan galiyaan sababta ku galaftay ma garanayo anigu sababta miya cabsadeen miya loo hanjabay ma faraa laga hayaa ma waxa weeyaan anigu ma garanayo sababta waan baarayaa arrinta waan baarayaa arrintaasna ma noqonayso mid meesha lagaga harayo marka saddexda qodob yaa u banaan ninka ilaa farmaajo inuu is asilo oo booska iskaga tago oo nin Soomaaliyeed fiican u dhiibo oo wadani ah oo wadaninimada garanaya oo maxaan ku rahdaa waxa uu sheegayo maartay kaga rumaynayo horta waa inuu iskaga dhigo oo meesha iskaga tago isaga iyo wasiirka wasaariso inay meesha ka tagaan oo dhaafaan inay soo taagan oo yiraahdaan sababtaas aan ninka u dhiibin lacag baan qaadanay waana loo hanjabay waana la xukumaa maxaa weeyaan sababtaas aan ugu kaliftay arrintaasaan u samaynay inay yiraahdaan dadkana ay yiraahdaan hana la cafiyo ummadda Soomaaliyeed khalad baan samaynay arrintaasaan samaynay hana la cafiyo inay yiraahdaan taasina waa qodob in diyaaradii dib loogu soo celiyo helicopter baa laga qaaday baa la yiraahdaa xamar yaa laga qaaday in helicoptertii dib loogu soo celiyo oo dawladda Ethiopia ay dhahaan wallahi arrintu sidii hore ma aha arrintu saan moodayna ma aha waxaan idinku codsanaynaa ninka in la saaka dan kasta oo leedihiin oo meesha ku qabtaan aska wadataan danihiina safaaradiina haydin deganaadaan meesha laakiin hadda waa la isku dhagan yahay hal keeno haddii ay taasi dhici weydo oo intaas ay noqon weydo yaani waxa weeyaan aniga horta shakhsi ahaan horta kalsoonidii aan u qabay maxaan ku dhahdaa farmaajo waan la noqday anigu kalsoonideeda waan la noqday waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan maanta meel ay joogaan nin jecel inaanu jirin waxa ay sameeyeen maanta nin maanta ku faraxsan inaanu jirin nin ku faraxsan waxa ay sameeyeen inaanay jirin baan maanta aaminsanahay arrintaasina waxay gaaraysaa meel xun waxaad gaarsiiseen ummadii Soomaaliyeed heerkii ugu hooseeyay ee qofka bini aadanka uu gaaro yaad gaarsiiseen the lowest of the lowest baad geyseen yaad ummadii Soomaaliyeed geyseen waxaad ku geyseen ummadii Soomaaliyeed nin Soomaaliya oo muwaadina oo hadduu dambi galay dambigiisa maxkamad lagu saari karo meel oo hadduu wax kala geystay meesha lagu baari karo oo aad xiri kartaan oo aad toogan kartaan oo dili kartaan ayaa intaad gardaduubteen idinkoo madaxdii ugu sarreysay Soomaaliya ayaad taasi iga raali ahada telefoonka laga soo galgalaya runtii taasi waxa weeyaan dhibaato badan ayay abuurtay ummadda Soomaaliyeedna way ooyeysaa caawa ummadda Soomaaliyeed way ilmeynaysaa caawa laakiin ilmadaasi waxaan rajaynaynaa inay guul ku dambeynayso Ethiopia kala tagaysa waxaan rajaynayaa anigu sidaan aaminsanahay waxa weeyaan in xabiska aanu ka soo saari doono maxaan ku dhahaa Cabdikariin aanu xabiska ka soo horto xorriyadda Soomaaliya maartay ogaadeenina uu ka qayb qaadan doono madaxdan ka noqon doono ayaanu aaminsanahay insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo way imaanaysaa laakiin hadda idinka saddex wajiba mid idin banaa idinku mid ka jeceshay idinku yaala inaad iscasishaan inaad maxaan ku rahdaa aad haddii kale idinku madax dhardhaara iska soo fadhiya iska calool adeegoo iska fadhiya haddaad doontaan ceeb kalsoonidii Soomaaliya waa lumiseen waxaa Soomaaliya dhalinyaradeedii yacni niyadda fiicnayd ee idin garab ordaysay ee af iyo adib idinku taageeraysay ee maskax idinku taageeraysay waxaa dhaxal siiseen in aan qof dambe aanay aaminin oo siyaasi ah dambe inaanay aaminin baad dhaxal siiseen yacni waxa weeyaan rajo xumada aad Soomaaliya badeen runtii waxa weeyaan waa midaan aad uga walwalsanay aad iyo aad baan uga xumahay inaad maartay afkiina iyo uurkiina uu maartay uu kala nooc noqdo sababtii aad laydinku doortay yacni waa dareemaysaan waxay yacni sababtii laydinku doortay laydinku banaan baxay yacni xamar oo dhan laydinku maartay laydinku dabaaldegay aqoon kale ma lahayn laakiin dadku niyad wanaag bay hayeen waxay islahayeen wixii hore wax dhaama ayaa meesha yimid laakiin wixii hore wax ka hooseeya ama ka xun inay yimaadeen maartay lama filaynin waxaa dadku ay ku haysteen inaad tahay nin Etoobiyaanka necab oo siyaasadda Soomaaliya aad ugu dhuundaloola oo la xajecla Soomaalida ay ka hayso oo siyaasadda Soomaaliya rabay inuu meel fiican gaarsiiyo
sida aad ku ballan qaaday maaragtay afkaaga laga dhadhaminaya hadalladaada laga dhegeysanayay laakiin waxaad noqotay lamood noqosa weydii runtii lamood noqosa weydii waxaan u malaynayaa kacdoonkan hadda laguu bilaabayo saan u malaynaya mid istaagaya maaha kacdoon baa laguu bilaabaya haddii lagu jeclaa hadda waa lagu nacayaa haddii laydin jeclaa hadda waa laydin nacayaa haddii dib laydin taageeri jiro ama guda iyo dibad baa laydinka taageeri jiray dadka intoodii badnay taageeraha waa idinkala noqonayaan ninkii gaar ahaan idin taageeraya idiga isagay jirtaa ninkii siyaasad gooniya idinku watay idinkay jirtaa ninkii qabiil idinku watay idinkay jirtaa wallaahi qabiil inaan idinku raacin laakiin kalsoonideeda waa idinkala noqday sababtaan idinkala noqdayna waxa weyaan kalsoonidii baa lumiseen soomaalinimadii baa ka tagteen nin gobernimo doona oo qadiyada soomaaliya u taagan baad cadowgiisii gacanta u geliseen idinku haddaad doontaan dili karoo toogan kara idinkoo haysan kara yacnaa waxa idin gaarsiiyey cabsida intaa leeg idinku kalifay anigu ma garanayo runtii soomaaliya maanta ooyeysa oohintaa idinkaa ka keenay yacnaa inta ruux ee maarata social media aan ka arkay maaratay ooyeysa yacnaa idinku hanjabtay waa laydinku hanjabay xaashi aadan uba ma taqaanin macnaheeda uba maxaad ka garanaysaa adigu uba maxaa la dhahaa maba garanayso uba macnaheeda ma garanayso xaashi aadanow uba maxaa la dhahaa maadaa uba garanaya waxay tahay wars uba maxaa la dhahaa horta barsheeg adigu macnaheeda maba garanayso uba maata marka ereyada ubadii waxaan soo bartay horta marka hore marka waxa weeyaan hadda haddii ay xukuumadihii bilmatalan maxaad uga soo qaadaysa cadaado taar dholeed maxaad uga soo qaadaysa maxamed aniba wuu dhiibay taar dholeed laakiin kamaanan cadhooneen runtii adigu laakiin ma lacag baad yani mataqaanaa kororsanaysay ma sumcad kalead kororsanaysay maxaa kuu kalifay inaad maxaan ku dhahdaa aad ka soo qaadato oo tira war aniga ii keena ma lex jeclaa ka haysa ma jacayl aad u qabta miyuu ahaa inaad ninkan etoobiyaan u dhiibto ma sumcad baad kaga raadinaysay maxaa kugu kalifay madaxweyne yani maxaa kugu kalifay maxaa cadaada uga soo kaxaynaysa cadaada maad u geysa yani mataqaana maad u dhaaftay faraa uga qaadi يعني dadku waxay isweydiinayaan waa waxaas wax qof qaadan kara ma jiro adigoo cadaada ka soo qaaday oo maxaan ku raada galmudug adigu gacantaada ku dhiibto يعني dadku aad bay ula yaabayeen insha Allah barnaamijka intaasan ku soo gabagabeynaya barnaamijkan maaha kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay maaha laakiin waa kii ugu horeeyay bilowga ah waxa weeyaan ilaa iyo meesha ugu dambaysa insha Allah yaan la gaari doonaa maxaan ku raada xukuumadda farmaajo way xukuumadda farmaajo aad baan u dhaleecaynayna yani qadaf siyaasadeed xun bay gashay khalad siyaasadeed bay gashay khaladkay gashayna waxa weeyaan loogaga hadhi maayo sharci iyo maxaan ku rahdaa iyo hadal iyo wax ka sheeg iyo su'aal intaasba insha Allah waan la garab istaagina waan la daba soconayna hadii ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mahadsantii boqolkiiba boqol.